بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالي قيمة بدن موضوع ما أنت أن كهل دون حغير يكدون هي مواضيع ذي أنت بدن كسو هاللي تشرني أنت عن الموضوع وجلين أنت بدن وحامس كحل كسو نقنقن جرتي قفك صومالي أما ضدك صوماليات أثر كيورات كتجي أما الصومالية سامين تقولها هالنقطة متشالات ككل دوان النولش inta badan taariikhdooda safarkii ay soo mareen caqabaadkii ay soo mareen casharada maaragtay noloshooda lagala dhaxbaxayo inta badan lagama sheekeeyo. Dr. Cabdikariim Bakaar oo ah caalim maaragtay suuri ah muslim ah dacwada iyo majaalka fikriga iyo tafkiirka iyo tarbiyadana wax badan ku soo jiray ay wuxuu dhihi jiray ummadda faqriga ah ee baaba'san ee burbursan waa ummadda dhalinyaradeeda ama jiilkeeda soo koraya markay dhinacyadooda fiiriyaan ay ka waayaan dad hogaamiyayaal ah ama qaada ah oo cudamo ah oo waaweyn oo raad iyo asar ka tagay oo ay ku daydaan ficilna wadamada kale dadkooda culimada ah ama noqoto majaalaadka kala duwan ee nolosha taariikhdooda way ka sheekeeyaan masiiraadkooda cilmiga bay diraaseeyaan noloshoodii bay ka hadlaan kutubtoodii bay isku day inay faafiyaan mu'alafaadkoodii laakiin annaga waxaan isweydiiyay arrinta maxaa inoo diiday waxaan dareemay culimo badan oo Soomaaliyeed oo soo dadaalay oo athar iyo raad ka tagay cudamo ahna in aan dayacnay oo aan taariikhdoodii ilownay oo aan noloshoodii iyo raadka ay ka tageen aan ilownay ayaan xaqiiqatan dareemay waxaan markii ugu horeysay Sheekh Almis Sheekh Yaxya xafidahullah ka dhageystay taariikhda Sheekh Maxamed Macalin Xasan Sheekh Maxamed Macalin Xasan taariikhdiisa markuu ka sheekeeyay waxaa isir qofka sidaa ah xaqiiqatan taariikhda leh haddii maanta wasadka dhalinyarada jiilka masalan 90kii ka dambeeyay la wareysto in badan oo kamid ah taariikhdiisa wax fiican kama yaqaanin haddana inuu kamid ahaa tiirarkii ay ku taagnayd saxwada islaamka ee Soomaaliyeed isbedelo waaweyn uu ku sameeyay qaabkii dacwadu ay u socotay ibdaacaad badan uu ku soo kordhiyay ibtilaa'aad badan uu soo maray iyo qaabkii talabkiisa cilmiga oo iyadana wax la yaab lahayd iyo malakadiisa cilmiga intay la ekeyd qofka qiimaha badneed oo haddana aan taariikhdiisa xogaar iska ilownay oo in badan oo kamid ah aan waxba ka aqoonin xaqiiqatan waa qudwa عظيمة مجالك الدعوة iyo tacliimta iyo waxbarida iyo sida wax ku soo bartay iyo imtixaamadii uu soo maray iyo ibdaacaadkii iyo waxyaabihii uu ku soo kordhiyay maaragtay majaalkii saxwada islaamiga ee Soomaaliyeed ama baraaruga islaamka ee Soomaaliyeed oo xiliyadiisii asaga markuu dacwada bilaabayay la bilaabanay waxaan isku day markay inaan raadiyo taariikhda Sheekh Maxamed Macalin Xasan alxamdulillah waxaan helay dhowr kutub ولوجه الله تاريخ الشيخ محمد معالي الحسن كتاب كحالي هذا الشيخ محمد معالي الحسن العلامة المفسر والداعية المجدد في الصومال كتاب لوقاسي عليه وهي تاريخ الشيخ عبد القادر دكتور عبد القادر معالي محمد قيدي أيا قري كتاب كان مرجع قرشيد يعني سبحان الله العظيم نك تاريخ له معركتي إنجازات كسواوين له waxyaabaha kala duwan soo maray iyo sida hadana taariikhdiisa u duugantahay ismalayn sidoo kale kitaabkaas waxa qoray Dr. Maxamed Xuseen Macalin Cali Cabaaqiratul Qarn al-Afriqi kitaabkan asagana waxaan maaragtay qof asxaabta kamid ah ayaa maalin iiga sheekay markaasaan ka soo qaatay culimo badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh ayuu ka hadlayaa culimada uu ka hadlay waxa kamid ah Sheekh Maxamed Macalin Xasan oo taariikhdiisa uu wax ka qorayo كتابكاس حالي الدعوة الإسلامية في الصومال وحاسكاله دكتور عبد الباسط الشيخ إبراهيم أنا مركو وكالله الدعوة الإسلامية الصوماليات علماء وساق هذا وحكمت الشيخ محمد معلن حسن عدو سبريه الشيخ محمد معلن حسن مركو نولشي حقيقة وحين وقبنا إن دراسينه مسيرته العلمية مركو كوات كدبنا مسيرته الدعوية مركو لبات iyo injaazaati dacwiya inaan diraasayno oo aan duruus kala dhaxbaxno laakiin waxaan rabaa taariikhdiisa oo dhan halkan ugu hadli karo 3 darsi oo aan ka bartay nolosha Sheekh Maxamed Macalin Xasan Ilaahay u naxariistay
oo annaga dadkeena dhalinyarada ah ama jecel dacwada iyo diinta iyo ummadda wax u qabashadeeda jecel cashir u noqon karta inaan halkan kugu soo gudbiyo. haddaba tilmaanta koowaad ama darsiga koowaad ee aan sheekha noloshiisa ka barto waxaa weeyaan yacni aljidiya fi talab alcilm. sheekhu wuxuu naftiisa agdhigay cilmiga inuu barto. yacni markuu yaraa 1934 ayaa la sheegaa inuu dhashay, laakiin yacni baasabooradiisa iyo dukumiintiyadiisa waxaa ku qornaa 1936 inuu dhashay. buur hakaba ayuu sheekhu ku dhashay, laakiin wuxuu kasoo jeedaa sheekhu gobolka hiiraan. hooyadii ayaa laakiin reer buur hakaba ahayd. hooyadii asagoo yaroo 4 jir ayay dhimatay, aabihiina asagoo 9 jir ayuu dhintay. sheekha marka abtiyaashii gacantoodii ayuu kusoo koray oo quraanka soo xifdisiiyeen oo kutubtii yaryareed ee fiqiga shaaficiga wuxuu ku bartay dhulkaas. sheekhu marka wuxuu bilaabay inuu safar u rixlaysto marka dhulkii Soomaali galbeed iyo dhulkan waqooyiga Soomaaliya hadda Somaliland la yiraahdo deegaano kala duwan ayuu sheekhu cilmi u doontay. tafsiirku ka soo bartay, luqadda carabiga buu soo bartay, fiqiga shaaficiga ayuu si fiican u soo bartay. culimadii wax ka bartay waxaa ka mid ahaa Ilaahay u naxariistay Sheekh Cali Jawhar oo ah aabii dhalay Sheekh Cabdullaahi Cali Jawhar. marka sheekhu markuu cilmigii dhulkii Soomaalida iyo deegaanadii Soomaalida bartay aadna u laasimay culimadii joogtay ayuu isku dayay inuu safar u rixlaysto. wuxuu aaday wadanka Masar markuu tagay kuliyadda usuuludiinka ayuu galay qismiga caqiidada iyo falsafada. marka sheekhu asagoon horay yacni diraasa nidaamiya u soo marin ayuu haddana ku guuleystay Azhar oo waliba xilliyada ugu fiicneed ah in la qaato. imtixaankii markuu galay wuu ku baasay, aqoontiisa oo sareysay daraadeed kadibna waa la qaatay. sheekhu markuu Masar tagay marka halka kuma istaagin, haddana asagoo jaamacadiisii dhiganaya usuuludiinkii caqiidadii falsafadii ayaa markuu shahaadadii koowaad qaatay ayuu haddana isku dayay shahaadadii magisterka inuu qaato. shahaadadii PhD-ga doctorada ayuu haddana isku dayay sheekhu inuu qaato. baadkii buu soo qaatay, master buu soo qaatay, doctoraa ayuu diyaarinayay oo markaa xataa baxsigiisii cilmiga ahayd ayuu qoray, laakiin sheekhu ma suurtagelin inuu soo qaato shahaadadii doctorada ahayd. waxaa dareemay marka sheekha dadaalkiisa isagoo jaamacadiisa is dhiganaya haddana dibloma ayuu wuxuu ka qaatay kuliyatu tarbiya jaamacadda Cayn Shams. halkaa marka waxaa arkaysaa dalabkiisii cilmiga inay ka gooneyd inuu cilmi barto, waana sababta keentay inuu sheekhu noqdo yacni baxar inuu ku noqdo culumta si gaar ah luqadda iyo tafsiirka iyo fiqiga inuu baxar ku noqdo ayaa keentay. aad ayuu ugu dadaalay dalabka cilmiga. waxaa la yiraahdaa intuunan Masar u bixin ayaa loo soo bandhigay inuu guursado, laakiin sheekhu wuu diiday. wuxuu diiday inuu ka mashquulo waxbarashadiisa iyo diraasadiisa. 1968 ayuu Soomaaliya ku soo noqday. intaa marka waxaa dareemaysaa sheekhu wax aqrintiisa iyo waxbarashadiisa inuu naftiisa u gooyay. halkaa marka waxaan kala baranaynaa aljidiyatu fi talab alcilm. sheekhu siduu jiddi ugu ahaa ugu adadkaa ugu dadaalay inuu cilmi barto. sababta maxaa markaad inaad dad wax u sheegto ama aad dacwo gaarsiiso awalan wa qabla kulli shay waa inaad wax taqaano. thaniyan waxyaabaha sheekha aan ka barto waxaa ka mid ah almubaadara. sheekhu mubaadir buu ahaa oo almubaadara walibdaac yacni 1968 markuu Soomaaliya kusoo noqday. Soomaaliya oo tafsiirka bisha Soon bes la dhigto, haddii la dhiganayana la laqbaynayo kaliya oo noloshii bulshada iyo quraanka xogaar ay kala dheer yihiin. yacni afkaar kala duwan oo dibadaha nooga timid oo fikirkii shuuciga aan wadanka ku faafayo. hadda leena gumaysta laga soo baxay oo 8 sano ummaddu ay maaragtay xor tahay ayuu sheekhu Soomaaliya ka soo dhaxdhacay. sheekhu marka mubaadaru sameeyay wuxuu bilaabay inuu dadka tafsiir u aqriyo, laakiin tafsiirkiisa inuu ka duwanaado tafaasiirtii hore loo aqrin jiray. arrintaa waxay keentay marka bulshada iyo quraankiina isku soo dhawaadaan, dhalinyaradii, askartii, ganacsatadii, waxataa dumarkii oo asagoo hortii tafsiir inay raacdaan ama meel inay furtaan ama diin waxbarashada inay isku dayaan ay yarayd ama ay naadir ahayd ayuu isku dayay inuu u sameeyo markaas waxbarid. marka wadan asaga dhan dansanaa oo qaabka wax loo bartay wax loo baranay inuu inta wax ka bedelo qaab cusub la yimaado isla markaasna uu saameyn maaragtay degdeg uga tago dadkii oo masaajidku tafsiirka ka aqrin jiray sida la sheego inta gudihiisa buuxsama barnaamijka la fariisin jiray. yacni meesha masaajidku ka doortay xataa waxay ahayd meel ku dhisan maaragtay ikhtiyaar aad iyo aad fariid u ah oo magaalada meeshii faris magaalka ahayd ayuu ka doortay. marka askartii, ganacsatadii, odayaalkii, dhalinyaradii baa u imaanayeen.
waqtigii sida la sheego dhalinyarada iyo diintu waa kala dheeraayeen marka culimadaas ay ku sheegeen dhalinyaradu ay ka oo surwaalkiisa iska soo qaatay oo diintii dadka u sharaxayo oo dhalinyaradu u soo dhawaaday buu ahaa sheekh aad buu ugu soo dhawaaday dhalinyaradii tafsiirkiisa wuxuu noqday marka tafsiir mawduuci tarbawi ah isku day quraanka akhlaaqiyadka iyo tarbiyada uu bixinayo inuu nolosha ku dabaqo inuu nolosha u dhaweeyo arrinkan wuxuu ku ahaa mubaadir iyo mubdic ayuu ku ahaa sheekh markaa dambe ayuu haddana isku dayo dumarka inuu u yeelo meel qaas oo ay wax ku bartaan kadibna dumarkii ayuu isku xiray wuxuu u bilaabay tafsiir qaas ah arrinta xiisaha leh yani dumar dhowr qofooda inuu inta meel iskugu keenay ayagana uu bilaabo inay tafsiirka akhristaan oo markaa xijaabkii iyo tafsiirkii iyo kitaabkii loo soo dhawaado oo masaajidkii maaragta loo bato waa midda markaa xogaa yar ka careysiisay nidaamkii uu markaa ku dhex noolaa qodobka marka qodob aad iyo aad u kaana mubdican في عمله الدعوي شيخ عليه رحمة الله سيدو كلا أرنك كلا إن كبرنا إنه نلاش شيخ محمد معلن حسن حكمت يعني وحوقها قف أمضات همي أمضات بو حنبار سنة يعني ضي لحظة إسداد يلا قبل الله إلى كل كود مني ومدة يوحبرت ده يوحشيجي ده يدين إنه قبصته أيو شيخ وكود ده عليه رحمة الله إلها ونحرسته شيخ مركن نلاش يسمى بكرة حسن 4 sano ayay ku qaadatay cilmiga iyo dalabkiisa iyo raadintiisa 34 jir asagoo ah markuu yimid xamarna Soomaaliyana wuxuu bilaabay inuu dacwadii dadka gaarsiiyo ilaa 10 sano oo cumrigiisa kamid ah xabsi ayuu ku jiray 2 jeer ayaa xabsiga la kala geliyay يعني شيخ فير مركو صوماليا دولتي أي دعدينا وعاد وجود ذلك ومدة كلا تكتئ كلا تفرع قضاء إلا إسكو كانوا إسكو دينو علماء إسكو عرورية أيوة ما عرفت أفكار كلا تدون هذا إنه إسكو كانوا أو إسكو عرورية أو وجود ذلك يعني إن مدة ما عرفتي وحدة ذي يو إسهاسي جدي دبلو عليو سيدا مركا هذا الذي يسمركا دقيسة أكد ريميسيد سيدا علماء ذي لبع شرطي الله نولد مركا كشاكين أن أدريميسيد وحوها قف حنبارسن همي أمضيد أيو حنبارسنا وحوها مد آدياد وغمرقودا كلا تفراروقيا كلا تجدا كوي مد دلنيرada marka saxwada iyo baraarug islaamka kula jirtay iyo sida maaragta wadanka uu kala daatay iyo ummadii sida u baabaayso ayaa aad murug ugu haysay Sheekh Maxamed Macalin Xasan waa sababta marka sheekhu noloshiisa uu san ugu raaxaysanin 4 sano oo uu ku jiray waxbarasho iyo maaragtay wax raadi iyo talabul cilmi iyo safar ilaa Masar uu tagay oo waliba dhulka la maraya markaas 10 sano oo xabsi uu ku qaatay 10 sano iyo ka badan oo uu xabsi ku qaatay sheekhu iyo intii kale oo uu dacwad iyo diin iyo maaragta dadka wax u dhig iyo dadkan wax u dhig iyo meeshan daraase ka bilow iyo dhalinyaradan isku xir uu ku jiray iyo 90kii markay dawladda dhacday oo haddana dadaal geliyay bal in ummadii iyo odayaasheedii iyo dhaqankeedii culimadeedii majaalaadka kala duwan la isku keeno oo marka wadankii hagaajintiisii iyo wadankii sidoo dib uu kici lahaa uu ku mashquulo saal ajligeed ayaa sheekhu 2000 ayuu dhintay raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica 90kii ilaa 2000 sheekhu xanuuno iyo maaragtay xanuunkii marka dambe uu ku dhiman doono dhaawac ahaa ee Sacuudi ku soo gaaray iyo la tacaalideedii iyo daaweynteedii iyo ka hor markuu xabsiga ka soo baxay oo kale sheekhu xanuuno badan ayaa ku dhacay oo dibadaha la aaday oo laga soo daaweeyay oo uu soo noqday marka xanuunka laga soo daaweeyana waxbaristii ayuu bilaabay yani nolol waxa weeye wada buuxda oo ka buuxda cilmi barasho iyo cilmi barid iyo dacwad iyo ummad hamigeedo la xambaaro adduunyo iyo magaceed iyo raadinteed sida sheekha taariikhdiisa lagu sheego qof ku foolan ama ku jeeda ma ahayn Sheekh Maxamed Macalin Xasan dhibta uu diintan u soo maray iyo saxwadan u soo maray ma ahayn wax sahlan waxay marka inaan diraasayno halka waxaan u talagal marka saddexda qodob waa waxyaabihii aan ka bartay noloshii Sheekh Maxamed Macalin Xasan oo runtii kutubtan kala duwan ay ka hadlayaan xaqiiqatan wuxuu ahaa macallim iyo mufassir Soomaaliyeed markuu sheekha muqaddamadan sheekha kitaabkan taqdiimiyay marka uu hadlayo hadal aad u qiimo badan ay soo jiitay oo ahayd hadii dadka jasiiratul carab ay ku faanaan sheekh doctor maaragtay sheekh Cabdulaziz bin Baaz iyo mujaddidkii dacwada salafiyada reer Masarna ay ka sheekeeyaan
sheekh Shacraawi iyo sheekh Cabdilxaliim Maxamuud iyo culimadii reer Azhar reer Suudaan ay ka sheekeeyaan sheekh Ciwadullaahi Saalix iyo Xasan Turaabi dadka Soomaaliyeedna waxay hadal hayaan sheekh Maxamed Macalin Xasan marka culimada waaweyn inta badan aan maqalno aragno injaazaadkooda iraadkooda ayuu sheekhu haduu ma aragta ayaga camal ahayn oo aad ugu dhawaa oo darajadoodii uu gaarsiisanaa laakiin macal asaf Soomaali ayuu ka dhashay oo marka dadaalkiisii dacwadiisii iyo atharkiisii iyo masiiraadkiisii cilmiga ahaa wax la daba raacay ma aysan ahayn waana dareemaysaa sheekhu aqoontiisa iyo ma aragtay atharka iyo raadka uu ka tagay iyo cilmiga tafsiirka markuu aqrinayo waxyaabaha uu ka maray waxay ahayd in multaqayaad laga sameeyo in kulamo laga sameeyo oo markaa laga sheekeeyo sheekha noloshiisii oo atharkiisii raadkiisii laga sheekeeyo si jiilalka u dambeeyana ay naga dhaxlaan oo ay noo noqdaan dad qaada ah oo aan ku dayano oo ma aragtay qudwo noo ah oo aan ku faano dadaalka ay soo bixiyaan qof kasta oo raba inuu ummadan heer gaarsiiyana laga rabo inuu ayaga wanaagoodii kaga daydo waxyaabihii qaladaadka ahaa ee kasoo dhacay culimadoo dhan ayaa qalad uu ka dhacaa bal bani aadamkoo dhan ayaa qalad uu ka dhacaa macsuumiin ma ahayn laakiin inaan ilaahay u barino inuu u dhaafo intoodii wanaaga oo aad u tiro badan xaqiiqatan ilaa hadda asarkeedii iyo raadkeedii ay socotana inaan ilaahay u barino dhalinyaradeenana la baro si aan ugu dayano oo ma aragtay aan injaazaadkoodii iyo sida ummadda ugu dadaali jireen annagana aan ugu dadaalno dacwada sheekh Maxamed Macalin hantina kama uusan tacbin waxa weeyaa mana uusan ku raaxaysanin noloshiisii dacwigeeda xaqiiqatan waa sababta marka sheekhu guurkiisa iyo caruurtiisii marka laga sheekeynayo inta badan yani waa wax yar umrigiisa kamid ah bay ka qaadatay يعني وقت ودعوة كجرة وقت وحبس كجرة وقت وطلب كجرة أيه مركا نولش حتى شيخ سفي عنه مرة حسن لك وحرجينا إنه هدك عنك وها يوميره يدلك ودعوة دين توصل لي إلى محاول برينا السجى يعلموا بدن الصوماليات كتبتهم كقرن إلا شاكين يو إن إلى جنوين كورابيو علماء سياسة كالقيمة بدن taariikhdooda xaqiiqatan inaan ka sheekayno mudayin aad bay u badan yihiin laakiin waxyaabaha lagu qoray ayaa aad iyo aad u yar waayadii dambe ayaa taariikhyahanadeennu isku dayayaan inay taariikhdu inta raadiyaan wax ka qoraan aad iyo aad ayaan ayagana uga mahadcelinaynaa culimada qortay kitaabkaas sheekh Maxamed Macalin al-Calaamatu al-Mufassir wa-Daaciyatu al-Mujaddid Dr. Cabdiqaadir oo kitaabka bishaqsi iisu hadiyay kitaabkaas la yiraahdo ad-dacwa al-islaamiyya fi Soomaal oo uu qoray sheekh Cabdibaasit Sheekh Ibrahim iyo kitaabka la yiraahdo Cabaaqiratu al-Qarn al-Afriqi oo xaqiiqatan marka akhriso ka dhigayo qof proud ah oo ku faanayo يعني ما شاء الله قيمها dadkii soo maray culimadu ka sheekeynay aad iyo aad ay u badan kitaabka way badan lama soo koobi karo laakiin waxa muhiim inaan taariikhdooda ka sheekeyno oo aan ka warqabno oo aan taariikhdooda diraasayno oo markaas aan masiiraadkoodii cilmiga ahayd aan duruus kala dhaxbaxno aad iyo aad u mahadsantii walaalayaal wax yar وشيخ محمد معلم كتاب السنة يعني اسكو دينا مقالك وقال له لكن واحد اسكو دينا إن شاء الله إنا برنامج تحناها كسمينو تاريخ ذا الشيخ العلامة المفسر محمد معلم حسن عدو سبرية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. السلام عليكم ورحمة الله.